qiimaha shilinka doolarka ayaa mar labaad sare u kacay kadib markii qodobo lagu tirtirayo sixir bararka ay isla qaateen madaxda dawladda Soomaaliland iyo ganacsatada isku beddelka shilinka doolarka iyo shilinka Soomaaliland. Haddaba waxaanu wax ka weydiinay tallaabooyinka ay hirgeli waayeen go'aamadii ay xukuumadda isla qaateen ganacsatada ka ganacsata isku beddelka lacagaha. Gudoomiyaha sariflayaasha gobolka Togdheer Mudane Jamaal Afyare waxaanu kaga jawaabay dawladdu amaamiru minnas amarkana waxa ka wacan ficilka la raaciyo waxaanu dawladda waan u tagnay bankiga waan u tagnay waxaanu wal dhaqdhaqaaq samee lacageed oo in doorar hadii la siidayo suuqa lagu siidayo oo laantii la gurto waxa markaa hoos u dhicba iman lahaa wax dhaqdhaqaaq ma sameyn bankigu ma sameyn ilaalanka waxa kale oo wax ka weydiinay waxyaabaha sababay in la xallin kari waayo sare u kaca shilinka doolarka oo aan saldhigan ilaa intii la joojiyay iibka xoolaha nool ee lafdhabarta Soomaalida. xoolihii noolaa way istaageen oo suuqyada carabta waxbayna kama qaataan doolarkeena soo kaca waa laba nooc waa lacagta laynoo soo diray dadka biilasha loo soo diro iyo yaro hay'adu istiiso dawladda baahidii doolarna waa halkeedii qaadadka Soomaaliland soo gala maalintii waxay doonayaan 350,000 oo doolar oo deeliya ninka qaadka keenaa wuxuu taagan yahay waagii baryaba waa inaan helaa 350,000 oo lacagta Mareykanka si kastaba ha ku helo ama 800 ku soo gasho ama milyan ku soo gasho ama 900 ku soo gasho waxaan dawladdan la hadlayaa dawladdu Itoobiya caleen bay noo keentay aynu ugu bedelna milix iyo kalluun iyo waxa Ilaahayna siiyay taas waa talo waxaan kale la hadlayaa bankiga Soomaaliland shaqadiisu waxa weeyaan inuu marna dawladka xakameeyo marna laanta xakameeyo totally bankigeenu inaga ma shaqeeyo bankiyadan waa dahabshiil iyo shirkadaha privateska dawladduna waxay gabtay hawshii ay lahayd ee dhaqdhaqaaq ee xayiraadeed ee ganacsi ee maamul lacageed caalamka dawladda u goysay raadka shacbigu ma jiro lacagta ay qabanayaan iyo nidaamkooda dawladduna hawsheedu way gabtay dadweynaha laftiisu sixir bararku ka qayb qaadanaya qof kasta oo meherad haysta lacagta Soomaaliland ee uu isagu leeyahay wuxuu doonayaa habeenkii inaanay ku dhixin maqalkiisa oo lacag doolar isagoo jeebka ku haya uu seexdo dadkana waxaan leeyahay lacagtiina waraamino qof walba maqalkaaga iyo meheradaada ku yar kaydso aamin. ugu dambeyntii maraanu isnidhi iyagana dhankooda wax ka weydiiyay maamulka banka ee gobolka Togdheer ayaa waxay ka gaabsadeen arrintaasi. Maxamed Saciid Gaxnug, telefishinka RTN, magaalada Burco.